wuxuuna leeyahay dagaal ayaa mar kale dhex mari doono Israa'iil iyo Iiraan weliba Israa'iil ayaa duulaanka qaadayso waxaa sidaas yiri nin Al Jazeera ee wareysatay oo ah siyaasi ahna macallin duruusta ama arrimaha political science-ka ka dhigo jaamacadaha ninkan oo mar walba arrimaha bariga dhexe ay akrimaan ama dagaal iyo qalalaas ay bilowdaan waa nin ay ku tashtaan analyst fiican ah oo soo galo ama ay wareystaan ninkan saddex qodob ayuu maanta noo taabanaya sideedaba maxay damacsan tahay ciidan loo yaqaan Israa'iil maxay damacooda muxuu yahay damacooda waxa uu yahay oo dhan muuqaalada waa idin wadaa wuu noo taaban doonaa iyo sidoo kale halis ku soo wajahan Masar iyo Jordan iyo Masar iyo Jordan oo og halistan ku soo socdo maxay tahay intaasoo dhan inta aanan u guda gelin marka hore ay idin fasaxo muuqaalka professorkaas siyaasiga ah ee John lagu magacaabo Al Jazeera ee wareysato oo marka hore noo sheegayo in labada bil soo socoto gudaheeda duulaan ay qaadi doonto Israa'iil ee ku qaadayso Iran is that the Israelis in all likelihood are going to attack Iran for a second time in the fall of this year. ayay wuxuu leeyahay marka Israa'iil laba qorshe damacsan tahay ayuu ninkan leeyahay waa qorshaha koowaad dalalkan carabta ee deriska ah inay dhulka qabsato isaga noo sheegay in fasaxa muuqaalka wuxuu tusaale soo qaadanaya hadda Lubnaan iyo Syria oo meeshan hadda Israa'iil ee ku taalo xuduudka la leh jaba dhula laga qabsaday ayadoo lagu marmarsiyoonayo falal amni darro ayaa dhankaas ka imaanaya ayadoo lagu marmarsiyoonayo waa dal firi Lubnaan iyo Syria waxay kamid ahaayeen dalalka ugu awoodda badan carabta uguna xasiloon ay kamid ahaayeen maanta waa aragteen dhankan Lubnaan 20 kilomitir ay haystaan dhankan Syriana 40 kilomitir ay haystaan qorshaha dhan waa dhul qabsi dhankan kale Jordan ayay xuduud ka leeyihiin meesha Israa'iil ay ku taalo iyo Jordan xuduud ay jir u dhaxay oo saakadan qalalaas ay ka jirtay askari hore oo Jordanian ah uu dilay askar Israa'iil saakadan way dhankan Jordan ninka marka hadalkiisa idin fasaxay wuxuu leeyahay dhankan Jordanne dhul laga qabsan doonaa dhankan Masar waxaa la isku dagaali doonaa oo Israa'iil ay damacsan tahay inay qabsato dhulkan ballaaran ee saxaraha ah ee qeyraadka uu ka buuxo ee loo yaqaan Sinai oo Masar isla markiiba ay fahantay isbuucyada la soo dhaafo dhan ciidamo xad dhaaf ah Masar ay ku gureysay heshiis jiro oo Masar Israa'iil ka dhaxay heshiiskaas oo dhigaya 10,000 oo askari ka badan ma keeni kartid dhulkaas yaa lagu dhahayaa Masar lagu dhahayaa laakiin Masar way ka soo gudubtay markay aragtay halista soo socoto in dhulkeeda la qabsan rabo marka hadda waxay sii maraysaa Masar sida warkii ugu dambeeyay ku maqlay 40,000 oo ciidan saxaraas inay geysay oo difaac Masar ay gashay war aagaas holca ka socdo waxa uu moogideen marka ninkan aydan fasaxo qaybta dambe horta halista labaad waa ka wada hadli doona laakiin halistan koowaad oo uu leeyahay damaca Israa'iil waxay tahay in dhulalka deriska ah oo dhan oo Masartaan awoodda badan ay ku jirto in dhul laga qabsado Jordan taas xasiloon ee qeyraadku ka buuxo in dhul laga qabsado Lubnaan iyo Syria waaba sidaasayba kugu daayeenba oo dhul ballaarsi waaye ninka odaga Netanyahu wuxuu meesha la fadhiyo ninka hadalkiisa waa kan Elgis What you want to understand is that the Israelis are interested in creating a greater Israel. That's their first goal. And that means conquering territory and incorporating it into a greater Israel in places like Lebanon, Syria, Jordan, and the Sinai. They want Laban's round. Way qorshaha kale muxuu yahay qorshaha kale wuxuu yahay in Mareykanka loo adeegsado Mareykan iyo Israa'iil ma kala haraan waa farqaha asaasaan in Mareykanka loo adeegsado in dhanka Sacuudiga iyo wadamadan Gulfka ee Qatar iyo Bahrain iyo Imaaraadka Carabta iyo la madadaaliyo oo Israa'iil saaxiib lagala dhigo oo ayaga la tusay in halis aysan ku soo soconin Well, I think that these Gulf states that we were talking about before, you know, Qatar, the UAE and Saudi Arabia don't have much to worry about. And Arab fiiri isma haystaan walaalkood oo dhul laga qaadanayo oo xatooy lagu sameynayo oo la dilayo oo la qafaalinayo ay og yihiin aysan hadlin Mareykan marka ninka odayga wuxuu leeyahay qorshaha waxa ku jirto in Mareykan iyo Israa'iil iyo Carabti kale la heshiisiyo oo Sacuudi ay kamid tahay Sacuudiga lagu soo daro barnaamijkan Abraham Accord-ka oo Imaaraadka Carabta already uu ku jiraba Imaaraadka Carabta goor hore wuxuu ku jiraa Abraham Accord
qatar iyo baxreen iyo sheekada dhankaas in laga qaboojiyo oo maxaa la dhihi jiray sacuudiga iyo maraykan loo diro maadaama maraykan saameyn fara badan dhankaas uu ka leeyahay oo israa'iilna wax allaaliya waxay damacsan tahay in ay gebi ahaanba meesha ka saarto dadka falastiiniyiinta dhulka degan in masar duulaan iyo qafaal iyo foodo lagu bilaabo in iiraan la weeraro oo halista ugu weyn oo maanta ciidamo halis ah dhankaas sidaa ogtihiin iiraan waa dalka keliya shiicaba iska ahaadaane israa'iil ku hareereysay dab halis ah sida waxaa ka hadlaynaa xamaas iyo xisbullah iyo guruubyada kale ee adkaaya sida hadda xitaa kuwa xuutiyiinta dadkaasoo dhan ma soo hubeynin sacuudiga ma soo hubeynin masar ma soo hubeynin qatar ma soo hubeynin jordan kuwaas gorora meel soo saartay waxaa soo hubiyey iiraantiina 2 bil hadda kadib duulaan oo lagu wadaa qaawan ku socdo taas markay dhinac u dhacdo waaye qorshaha ninkan hadda inuu sheegayo jordan iyo masar tan ka jirto syria iyo lubnaan oo kale inay dhacdo carabta horta intaas kule masar way ogtahay waa ishubaysaba